wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Saacad Cali Shire ayaa furay kulan lagu falanqeynayo sidii loo horumarin lahaa macluumaadka wasaaradaha Soomaaliland ay ku shaqeeyaan waxaana kulankaasi ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka iyo mas'uuliyiin kale waxaana halkaasi hadal ka jeediyay Amiin Abshir oo ka mid ah soo qabanqaabiyayaashii barnaamijkaasi laba qolob bay kala yihiin shahaadooyinka iyo aweerisku shahaadooyinka tababarka aad qaadatay cadaynaysaa وهذا التوالي واحد قرص شهادة كلا قاعدة كبيرة ما دام سيستم كنا سيستم جودة وده كلا جاي استعماله شهادة أثيرة هاي ستواحد عطين دونتها إن اليوزر كهاي سيستم كه هذا عجيب أول قدر طبعا أنا فاينانس أمديجي سيستم كه محل قانون لاهي مرة واحدة هو سكر صارتها واي إن تسوى قفل مقاضنية 2018 يوزر سيستم كاستعماله ما 19 ديجي ده يوصل بيري أيدين كلا كي يوزر سيستم كاستعماله iyaga tobanka user u sareeyay baan soo saarnay systemkan ka soo saarnay waxaan ku bees karaynaa saddex shay kow sidoo uu ahaa lead transaction ka wasaaradda oo arrimaha agaasimaha gudiga codsaday ka mid bay ahayd sidoo soo diyaarsan jirtay documentation-da laga rabay sidoo soo upload garin jirtay process-kaaga soo socon jiray qolada approve list-kana wax lagu doortay sidee u approve gareynayeen timeline-ka haysteen in transaction-ka approve gareeyaan iyo markay xisaabintii sanadku dhamaaday ID sidoo waaxda wasaaradda xisaabteedu noqotay geestiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland jecelahay inaan hal kelmad inta aanan fariin u gudbin kelmaddu waxay tahay isticmaalka systemkan inaynu u fahamsanahay inuu yahay toolkii amba habkii aynu kor ugu qaadaynay adeeg bixinta qaranka yani public service ka aynu ummadda u hayno habkii waraaqaha iyo hawlihii kale waxyaabaha ujeedada ugu dambaysa ee ka leenahay waxa way sidii adeeg bixinta dawladdu uu tayadiisa efficiency-giisa iyo time-kiisa iyo cost-kiisuba kor loogu qaadi lahaa marka aad iyo aad baad ugu mahadsantiin bilihii ugu dambeeyay recordka aynu hayno sida aynu inagoo agaasimayaasha guud runtii ay muhiim ka yihiin onaana ka mid ahay tiimka aynu guud ahaan uga qayb qaadanay in aynu dardar gelino isticmaalkiisa tayayno maantana iskugu nimaadno kulan aynu dib u eegis ku samaynayno marxaladda isticmaalkeenu halka ay taagan tahay iyo halka looga socdo taasi waa tu aan doonayo inaad maanka aynu ku wada hayno oo mas-uuliyad qaran oo aynu wada saaran ay tahay qodobka labaadna waxaan codsan lahaa inagoo isticmaalayna systemkii casriga ahaa dib u dhacyada mushaharooyinka iyo adeeg bixinta dawladdu runtii kama turjumayso automationka iyo casriyeynta aynu maanta u fadhino halkan marka waxaan codsan lahayn sida warqadda wasiirka wasaaradda maaliyaddu uu wareegto ku soo saaray in ugu dambeyn insha Allah 15 bisha 15 bil kasta aad mushaharka soo gudbisaan bisha soo socota مثلا markaynu March mushaharkeeda diyaarinayno waa inaynu 15 bisha March April bisha March markaynu bixinayno mushaharkeeda waa inaynu February 15keeda aynu soo gudbinaa si maalmo kooban processka aynu marino xilli hore oo dhowr iyo 20 bishana aynu shaqaalaha oo runtii adeeg qaran ku jira aynu mushaharooyinka iyo gunooyinka la gaadhno taas iyadoo official ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda uu saxeexay waxaana rabnaa in aynu systemkeenu ka turjumo dalabka hore iyo casriyeynta wasiirka horumarinta maaliyadda Saacad Cali Shire ayaa shahaadooyin waxa uu gudoonsiiyay qaar ka mid ah agaasimayaashii ka soo qayb galay munaasabadaasi ee iyagu muujiyay dadaalka marka tababar baa soo gasheen waan idin hambalyeynay haddaan idhaahdo dib waan idin hambalyeynayaa kuma qoran kartaan CV-giina marka waxa loo baahan yahay xus baa loo baahan yahay marxaati ka shahaadada iyo hadiyada la bixinayo runtii waa xuskiya marxaatigii dadaalkii badnaa soo sameeyay aqoontii aad ku qabsateen ugu horeysiinay marka waan ku hambalyeynaya Mukhtar Ismaaciil Ali Telefishinka Universal Hargeysa